madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylic ayaa maanta ka qayb galay bandhig cilmiyeed lagu gorfeynayo heerka tamarta dalka kaasi oo ay barbar socoto carwo ganacsi oo lagu soo bandhigay qalabka ku shaqeeya tamarta dabiiciga ah sida tamarta qorraxda, dabaysha iyo tamaraha kale. Bandhig aqooneedkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda tamarta iyo macdanta Soomaaliland waxa kale oo ka qayb galay wasiirada wasaaradaha qorsheynta qaranka, deegaanka iyo horumarinta reer miyiga, madax ka socota xukuumadda iyo hay'adaha caalamiga ah iyo khubaro aqoon u leh ka faa'iideysiga tamarta dabiiciga ah. Bandhiga oo socon doona muddo 3 maalmood waxa ujeedadiisu tahay in lagu gorfeeyo sidii loo horumari lahaa tamarta dalka iyo in la ogaado heerka tamarta dalku haatan marayso iyo sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada dhuxusha ku haysa deegaanka. Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylic oo hadal ka jeediyay halkaasi waxa uu ka warramay sida loogu baahan yahay in la horumariyo tamarta dalka. Waxa kale oo ka warramay qorshaha xukuumaddu ku doonayso in wax laga qabto dhibaatada dhuxusha ku hayso deegaanka. Waxaanu madasha ka akhriyay baaq xukuumaddu ka soo saartay xal u helida dhuxusha. waxaanu yiri dabiirkeenu inama siinayo inaynu dul qaadano xaalad deegaankeenu ku jiro waxa qasab ah inagu ah inaynu ku talaabsano wax kasta oo suurtagal ah iyo qiimo kasta aynu kacay inaynu badbaadino xaalufta deegaankeena iyo dhirta. sababtoo ah anigoo madaxweyne ku-xigeen ahaan anigoo matalaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku soo jeedinaynaa baaq tilmaamaya in soo saaridda dhuxusha la yareeyo boqolkiiba 30 labada sano ee soo socda 2014 iyo 2015. waxaan faraynaa wasaaradaha u xil saaran iyo hay'adaha wada shaqeynta la leh in ay wasaaradda tamarta iyo macdanta, wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo deegaanka iyo dhammaan hay'adaha wada shaqeynta la leh inay si dhaqso ah u keenaan wixii xal u noqon lahaa xaaladaas khatarta ah kuna fuliyaan waqtigan bartilmaameedka ka dhiganay. dowladda Soomaaliland waa in ay xoog saarto fulinta xeerka number 04 ee 90 soo baxay sanadkii 1998 in la hirgeliyo dhammaan hababka beeqaaminta tamarta dhuxusha ilaa inta laga helayo tamar kale oo bedesha si loo yareeyo isticmaalka dhuxusha loona gaarsiiyo inta ugu yar. waxa kale oo aan ka codsanaynaa dowladaha aan saaxiibka nahay hay'adaha caalamiga inay naga gacan siiyaan wasaaradahana ku shaqulana hawsha tamarta dalka ee ka gacan siiyaan iyada oo aan ka codsanayno inay wax kala hadhin wixii tamartooda. wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta injineer Xuseen Cabdi Ducaali oo madasha bandhig cilmiyeedkan hadal ka jeediyay waxa uu ka warramay ahmiyadda tamartu u leedahay horumarinta dalka iyo sida loogu baahan yahay corinta ila tamareedyada jaban sida tamarta qorraxda, dabaysha iyo tamaraha kale si meesha looga saaro ama looga maarmo isticmaalka korontada qaaliga ah ee laga dhaliyo shidaalka ama naafatada. wasiirku waxa uu ku dheeraaday sida xukuumadda Soomaaliland ay uga go'an tahay in la horumariyo tamarta isla markaana xal loogu heli lahaa dhibaatada dhuxusha ku haysa deegaanka. wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta Mudane Xuseen Cabdi Ducaali waxa uu sheegay in muddadii uu xilka wasaaraddaasi hayay uu dejiyay siyaasadda tamarta isla markaana uu gudbiyay xeerkii tamarta kaasi oo dhowaan u gudbi doona golaha wasiirada Soomaaliland. waxa kale oo uu sheegay inay gacanta ku hayaan mashaariic lagu horumarinayo tamarta dalka. bandhig cilmiyeedkan waxa iyaguna hadal ka jeediyay wasiirada wasaaradaha deegaanka Marwe Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare, wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Dr. Saad Cali Shire, xildhibaan Siciid Maxamed Cilmi oo ah gudoomiyaha guddi hoosaadka golaha wakiilada ee khayraadka iyo deegaanka iyo madaxa hay'adda UNDP ee Soomaaliland oo iyadu gacan ka geysatay hirgelinta kulankan. waxaanay dhammaan mas'uuliyiintaasi ka hadleen sida loogu baahan yahay in la horumariyo tamarta. bandhig cilmiyeedkan oo lagu qabtay hotelka Mansoor waxa kale oo lagu soo bandhigay carwo ganacsi soo bandhigay qalabka ku shaqeeya tamarta dabiiciga ah sida tamarta qorraxda, dabaysha iyo tamaraha kale.